naxariistay waxay ku jiri irbadaas waa nabcaha iyo bari baan ku xanuunstay irbada aad baan u nicebahay ka tahay caawana waxaan ka hadlaynaa hooyo aamino oo lagu dilay magaalada Burco nin dhakhtar baa wuxuu u soo qoray daawo nin bay u timid irbad buu siiyey irbadana maamadu hadda ka hor buu markuu lagu duray sida ay noo sheegayso gabadha ugbaad ay noo sheegayso mar ayaa lagu duray markii lagu durayna way ku xanuunsatay wayna u sheegtay aad baan uga xanuunsaday bay tiri maad iga daysid haddana wuxuu yidhi wax kale laguma hayo irbadii bay maamadii ayadii baa ka talinayso waxay leedahay intaa igu shub macnaha ii kala yaryaree ii kala haafaafee ma dhakhtarka wax maamulo mise ayada wax maamuli lahayd akhiiran maamadiina way u dhimatay oo waa lagu dilay way u dhimatay daawadii inuu ku duray ninkii bari ila dhegayso ayadoo ka hadlay qaabkii ay maamada u wada hadlayeen ama ay xaaladahoodu ay u wada hadlayeen ninka farmashiga haysta bal ila dhegayso iyadoo lugeeda ku socota ayay tagtay farmashi si ay uga soo qaadato daawo maadaama dhakhtar u soo qoray daawo waxaa laga soo bixiyey farmashigii iyadoo meyd ah kadib markii ay u geeriyootay daawo uu ku duray dhakhtarkii joogay farmashiga aaday in daawada loo soo qoray in daawada uu markii ugu horreysay wuxuu inoo sharxay wiilkani inay daawada loo soo sharxay oo dhakhtarku uu u soo qoray kadibna ay farmashigii imaaday farmashiganow farmashiyada Soomaalidu ay gacanta maanta ku hayaan waa farmashiyo intooda badan maaha qaar waa la heli wax bartay waa farmashiyo aan daawada unsee raashinka magacyadooda loo barto iyo cabitaanada iyo juuska sida loo barto loo yaqaano mooyaane aqoon kale ma jirto hooyadii irbadan uu yidhi waa kugu mudayaa irbadii way ka cabatay waxay tiri irbadan hadda ka hor baan qaatay way i dhibtay waan ku xanuunsaday aad baan ugu rafaaday cabsi bay ka muujinaysay hooyadani irbada xanuun baana sii hayay oo waxa daawada ku kalifay dad dhaqanka inaga Soomaalida ah waxa inoo dhaqan ah inagu oon xanuunsanayna umaynu daawo soo raasanaa ee inta aynu fayownahay aynu caafimaad qabna inta badan daawooyinka ma raadino waxayna kaga duwan halkaas dadka kale ajaanibta iyo ma garanaysaa gaal iyo islaamba leh ayagu way isbaaraan way isla socdaan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa isagoo fayow oon meelna xanuunaynin inuu qaato daawo laleeyahay waxaasay wax u qabanaysaa inuu qaato laakiin innaga Soomaalidu markaan xanuunsanna een ogaana xaaladeennu inay xun tahay ayaan daawada soo doonanaa hooyadani waxay samaysay marka daawadii ayay soo doonatay daawadii markay soo doonatay waxaa dhex maray arrimahana dhex maray bal ila dhegayso arrimaha dhex maray dadana waxay ku jiri Allah u naxariistay waxay ku jiri irbadaas waa nabcaha iyo bari baan ku xanuunstay irbada aad baan u nicebahay waan maqashay hooyo arrimaha dhex maray aamino hooyo aamino iyo wixii dhex maray oo dhanba iyadaa inooga sheekaysay hooyo waxaan aad ula yaabay anigu runtii ninkan dhakhtarka farmashiga jooga ee daawada raba ama irbada raba maamada inuu ku mudo aad baa ma garanayso keli waxay uun garanaysaa daawadan oo kale ama irbadan oo kale markay san oo kale u xanuunsatay inay qaadan jirtay welibana cilladii ka soo martayna way sheegtay waxaa la rabay hadduu aqoon lahaa aqoontiisii intuu kaashado haddii uu u arka ilaa ninka dhakhtarkii mararka qaarkood daawadan wax u qoraa daawadii hadday dhibaato keento waxaa laga yaabaa daawooyin kale loogu bedeli karo oo xogaa dhibaatada uu qofku sheegay la fangeli karta inuu ugu bedelo oo weydiiyo su'aalo taama intuu ka dhammaystirto hooyada uu yidhaahdo say wax ku yeeshay say wax dhibaato kuu gaarsiisay xaggeed wax ka dareentay waraysi nin dhakhtar ah oo aqoon-yahan ah oo waxaan soo bartay lagu yaqaana intuu hooyada weydiiyo waxaa la rabay janji inuu u sameeyo oo uu u bedela ayaa la rabay daawadii haddiiba uu daawadii uuna hayninna waxaa la rabay intuu ku calool adaygo daawada limitedkii iyo intii loogu talagalay inuu u siiyo maamada ama hooyada u siiyo waxaan aad ula yaabay runtii hooyadiibaa waxay leedahay sida ay ugbaad nooga sheekaynayso daawadan ii haafaafee haddana qayb isii oo igu turuq bay dadka qaarkood u isticmaalaan qaarna igu mud qaarna hadda kadib muddo kadib markaan tijaabina midan oo ma hooyaa dhakhtar ah hooyo aamina mayadaa dhakhtar ahayd waxaa dhakhtar ahaa oo daawada bixinayay oo daawada limitedkeeda iyo inta loogu talagalay yaqaanay wuxuu ahaa ninkan farmashiga loogu yimid
ma waxay ahayd waxaa dembi ah waxaa qalada hooyadu ma taqaana waxaan qofka shaqo una lahayn laguma sii daayo inuu shaqadii intuu ayada hadalkeedii maqlay ku sii daayay khalad ayay ahayd kadibna ra'yigii iyo maskaxda iyada u soo jeedisay uu qaato taa waxay ku tusaysaa aqoon inuuna ku dhaamin daawada unbuu gadanayaa lacag ahaan u gadanayaa mooyaane aqoon kuma dhaamo sida meesha ka muuqata aqoon hadduu ku dhaama hooyo hadalkeeda wuxuu dhihi lahaa hooyo waxan waa daawo maaha ra'yi adiga kaagama furno aniga unbay gacantayda ku jirtaa aniga unbaa garanaya intaan ku siin karo sidaasuu u sheegi lahaa hooyadan laakiin muuna samaynina wuxuu sameeyey inuu hooyada ra'yigeedii qaato uu intuu qaado daawadii ka mid a haaf uu hadda ku turqo ama uu ku mudo haddana haafkii kale mar labaad uu ku mudo sida ay noo sheegayso gabadha walaasheen ah ee ugbaad siday noo sheegayso runtii waa arrin la yaab leh waxay ku tusinaysaa nimanka dhakhaatiirta sheeganaya ama farmashiyada joogay daawooyinka bixinaya aqoonba male adigaa kolba dhinacaa doonta u duwi oo kolba dhinacaa doonta u leexinaya adiga unbay ku raacayaan masanay kula tahay masanaa kula quman farmashi baad joogtaa daawo aad bixinaysaa daawadu sideedaba waxa weeyaan waa mindi laba af le weeye haddii dhinac aan loogu talagelin iyo in aan loogu talagelin iyo qaab aan loogu talagelin aad u isticmaasho way ku dilaysaa way dhibaatay ku soo gaarsiinaysaa haddii daawada waa nin qof mindi af badan haysto oo kale ayaa tahay daawada u taalla mooyaane hooyo kuma dhaama aqoon sideedaba waxaa la rabaa ninka farmashiga joogay daawada hayaa isaga aqoon loogu yimid qofkan u yimidi ma hagi karo allahuma inuu dee qof dhakhtar a yahay oo isaga laftiisu dhakhtarnimo iyo macluumaadkii garanaya inuu yahay mooyaane kaa laftiisa dee aqoontii baad adigu leedahay adiga farmashiga daawada jooga ee daaweynaya aqoontii adaa iska lehe adiga laftaadu waxaa taadii baad la kaashan hadduu garab maro waa diidi haddii uu waafaqan waa adiga taadii ra'yigaaga kugu soo waafaqay waxa muna kusoo siyaadinin laakiin sideedaba aqoon la-aan inaad wax aad ku noqoto daaweeye ama dhakhtar ku noqoto ama farmashi aad ku furataay waa khalad warnimaya waxaan idin leeyahay ummadda hadilina ummadda in badan baad soo disheena in badan oo kalena hadilina hadda waxaan idin leeyahay adduunka waxaa la marayaa 2022 baa la marayaa xaaraan bay ka tahay maanta ma socon karto aqoontii baa soo badatay akhriskii baa soo batay kuwii idinla midka ahaa ee ajaanibtahay oo aqoonta lahaba adduunkii yimid oo dhulkaad joogteen imaaday walaalayaalo waxaan idin leeyahay inaaf ku joojiya halka qof dambe oo hooyo dambe iyo walaal dambe iyo wiil dambe iyo aabba dambe inaad naga dishaan waxaan idiin hayaa oo kale qisooyin aan idinla wadaagi doono oo meesha anigu aan jooga oon xogaa magaceeda sheegi doonin insha allah hadduu ilaah yidhaahdo ka dhacday oo niman cilaaj leh ay ummad dad badan ku dileen dumar ay dileen baan garanayaa waxaan garanayaa rag ay daawo ku dileen baan garanayaa waxaan garanayaa dhalinyaro ay daawo ku dileen baan garanayaa runtii xaqiiqatan ayaan idinla wadaagi doonaa insha allah dhibaatada maanta soo badatay aadka u soo badatay ee dad aan aqoon u lahayn daawooyinka intay dadka daawooyinka siiyaan ay ku laynayaan halkaasaan kusoo joojiyey waana ila qaybsan doontaan insha allah ra'yigiina iyo welibana waxaan jeclaan lahaa linkiya haddaad haysaan dad daawooyinkaas oo kale u dhintay inaad ii soo dirtaan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo shukran